cinwaanada kubadda cagta dhan waxa qaatay yaa Messi ka shakiyay oo yaa yiri Messi Ballon d'Or buu kaanishanaad ugu qalmaa ma ninkan arkayna ma kaanishanaad laga tuuray Ballon d'Or Allah maxay dhacday cadaalad dar adduunka kan ay leeyihiin kubadda cagtu saakay wargeysida Spain ugu weyn baana waxay saakay ciwaan ka dhigayaan sheekadooda ay tahay ma Messi aan aragnay iyo kaalintii Ballon d'Or ku laga galiyay shan iyo Messi ya shan kaalin shanaad iyo Messi wax la qaada kara ma ahin bay yiraahdeen xalay kubadda cagta Spain aad iyo aad ba looga hadlay ninkii xalay Messi hayo Isbaaniyol wuxuu ku sameeyo daqiiqadii 17 xalay Messi waxa uu dhaliyay bulshoon yaab leh markii uu dawmariyo gool hayaha kooxda Isbaaniyol ee Lopez ka oo Madrid u soo ciyaari jiray bari hore Leo ayaa gool hayu gacantiisa dhaafiyay kubadda asagu inuu rigooro kugu tuuro ayaa kaga fiican intuu bulshoon kugu tuuri lahaa maxaa yeelay asagu bulshoonku aad buu xariif ugu yahay odagu في هذا القرن فهو قرن ميسي هو زمن ميسي يضعها واي لمسه واي ابداع واي يعني تواجد وحضور kadib goolkaas Barcelona waxay la timaaday gool kale waxaana xalay ciyaartu dhaliyay Ousmane Dembele ayaantan Ousmane wax laga sheego waa been Ousmane Dembele waa kacsay ayaantan Ousmane qabaar bariyahan waa soo roonaadayo si fiican buu yeelayo u dheelayo xalay lugta bidxeed buu intuu ku gambiyay buu lugta midig ku tuuray asagoo hore wuxuu yiri ma taqaan anu lugta bidix baan ku ciyaara laakiin lugta midig ayaa ka shoot badan tab bidxeed intuu difaacu inta la dhaafay ayuu halka ka dhaliyay goolku Ousmane waa soo noqday Dembele is back يا ولد على اللمسه عملها هنا ديمبلي لمه في البعيده عيني على الجول يا عيني على الابداع واللمسه ميسي يصنع ولكن ديمبلي هذه المره حتى ميسي بقى كسو استاغيو يعني بوسكيسا كسو تغي او يمادو حبسي محايل وحو يري ميسي سو كهدلay aad baan ugu la farxay Usman goolka uu dhashay maxaa yeelay waxay u ahayd muhiim isagu inuu dhaliyo walibana waan jecelnahay inaan helno Ousmane Dembele aad u fiican Suarez ayuuna ka caawiyay Ousmane Dembele kubad kale oo yaab leh daqiiqadii 45 ciyaarta Barcelona 3 gool bay geeyeen Espanyol markii Suarez meel fiican kubad u dhigay Ousmane ayuu Suarez gool hayu la kortagay waxa uu ka dhaliyay gool meel ay adagtay in laga dhaliyo shalay buu hore u soo diyaarsaday taatoogiisa ugu dabaaldegi lahaa familkiisa gool hayu hoostiisa ka bixiyo tartiib bayna u gashay goolku 3 Barcelona xalay cid waa kacsanayeen تعادل وخسر 6 مرات ومع المره دي بتاع الصعب هو امامنا اهو لويس سواريز ايه من الزاويه ايه waxaana ciyaarta soo furay haddana xiray Messi markii haddana mar kale uu bulsho nigtay waana xirfadiisa markii ugu horeysay taariikhda Messi habeen gudaheed la liga uu ka dhaliyo laba bulsiyon oo xiriira laba bulsiyon uu qaatay inuu ka dhaliyo waa markii ugu horeysay xirfadiisa la liga waligaa liyo waxba ha ugu shakin waligaa liyo ha ka shakin ma ninka gaaban baad ka shakinaysaa waa laga yaabaa inaanu Ballon d'Or meel fiican uu ka gaari sanadkan oo yacni la leeyahay boosanaad buu ka galay laakiin indhahaynu nama sirayaan indhahaynu waxay arkayaan nama sirayaan waxaan arkaynaa mid kamid ah all time kii Kamal Daariq ugu fiicnaa waxaanu arkaynaa 10 sano u dambeeyay iyo 12 sano u dambeeyay waxaan arkaynaa wiil mucjiso ah oo ay adag tahay in la celiyo waxaan arkaynaa wiil habeenka lala ciyaarayo kooxda ka soo horjeeda maalmo ay tarbiyayaan ama ay qaacidada lagu celi lahaa raadiyaan waa laga yaabaa Messi inuu ku dhibtooday sanadkan jaayisada caanka ee Ballon d'Or oo uu ka galay booska shanaad laakiin ninkan xalay aragnay ee indhahaynu aan saarnay ee indhahaynu aan ku arki jirnay still aan arkayno indhahaynu nama sirayaan magic wali waa saaxirka Kamal Daariq الامور متظبطه مع ميسي ودي واحده جديده اوبا يا خبر ابيض ده دييغو لوبيز هيحلم بهذه كوابيس ميسي mararka qaar mucjisadiisu adigu bay ka qosolsiinaysaa Barcelona 4 gool bay xalay ku adkaadeen ciyaartii La Liga magic ayaana xalay mar kale adduunka tusay waxa uu isagu yahay idinka kacsateene Messi u dulqaata oo ka shakiyay